kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal jimca mubaarak ayaan idinka soo leeyahay meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada caasimadda maraykanku u ah ee washington d c agagaarka virginia waa 11 bisha julaayo ee dhammaatay sanadka 2026 qodobo dhowr ah oo dhammaantoodba ku salaysan waxyaabo kala gedisan oo isla bariga dhexe ah xaajooyin wada cakiran iyo xiisado cirka ah ayaynu ku eegi doonaa tabintan si gaara waxaana aan ku soo qaadan doonaa dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo samaynaysa isbahaysi military oo ilaalinaya ayay yiraahdeen amniga badda cas dhowr iyo 10 dal oo isbahaysigaasi ah Soomaaliya ayaa ku jirta xamaas oo ogolaatay in heshiis ay la galaan guddiga Trump uu abuuray ee iyagu hubka dhigista xamaas ku sameynaya Israa'iilna ka saaraya marinka Gaza ciidamada Iran oo sheegay goor dhaweeto oo haatanba ah weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in ay ku qaadeen dhinacaasi iyo dalka Kuwait ee saldhigyada ciidamada Mareykanku ay ku yaalaan Trump oo ka fakaraya in Kuwait uu ka saaro ciidamadiisa wararkaasi iyo kuwa kaleeto oo dhammaantoodba ku salaysan isla xiisada bariga dhexe ayaan idinkugu haynaa tabintan dabcan dhinaca bariga Afrikada waxaa kaga jira oo khadka sidaad arkaysaanba ila faaqidaya wararkan oo dhan Cabdulqaadir Qayska soo dhawo Qayska warantii aad baan ugu faraxsanahay jimca mubaarak ayaan adigana ku leeyahay sidoo kaleeto wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe aad iyo aad u mahadsan tahay waana ku salaamayaa jimco wanaagsan runtii markaa Somali Coverage TV saaxiibada qiimaha badan ee wadin salaamaya marka xigta oo kugu hambaleenaya isbedelka quruxda badan ee studio ka muuqda sirtiisu ma jimcaha kaliya ku kooban yahay mise waa sida xaaladda wax badan ayaa u dhiman waliba laakiin hadda si sheegin adiga ma sha Allah waa hambaleenaya ma sha Allah saaxiibada qiimaha badan meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay subax wanaagsan saacadihii ugu dambeeyay waxyaabo badan ayaa ka dhacay bariga dhexe haddii aanu eegno dalkaasi Iran markaad eegtid xaaladda dalka Iraq xaaladda dalka Saudi Arabia Yemen iyo waliba guud ahaan bariga dhexe waxyaabo badan ayaa ka dhacay waliba xitaa dhanka Masar oo la ogaa markaas in lagu beegsaday iyaduna warar badan ayaa ka soo kordhay markaasi haddii aanu ku bilowno Iiraaniyiintu wali waxay sii wadaan beegsiga ay beegsanayaan qaybaha kala duwan wadamada khaliijka waxaana saacadihii ugu dambeeyay ay beegsadeen saldhigga Cali Salim iyo waliba midka kale Al Jabir waxaana ay ku beegsadeen diyaarado drones iyadoo la sheegay halkaas inay ka dhasheen qasaare kala duwan dowladda wadankaasi Kuwait waxay noqotay meesha ugu badan ee duqeymaha la kulanta kadib Imaaraadka oo dagaalkii 40kii cisho soconaya bariga dhexe gilgilay hadda Kuwait waxaad moodaa in dhibaato ba'an ay soo gaartay isla markaana la dhihi karo 10 sano ama 20 sano ay dib u noqonaysaa xaaladda hadda ay ku jirto marka laga hadlayo sababtoo ah arkaysa Kuwait in markaasi la beegsanayo kaabayaasheedii dhaqaalaha la beegsanayo saldhigyadii muhiimka ah la beegsanayo meelo badan oo muhiim ah waxaan ognahay in dalkan uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan shidaalka iyo naftada ay dhoofiyaan waxaana gebi ahaanba xiran marinbiyoodka Hormuz aysan wax ka dhoofin karin marka loogu sii daro xaaladoodu dal dhan oo hodan ah oo maanta ka hadlaya korontadii markaasi ma shaqeynaysa 40 markaasi 24 saac miyaa la helayaa mise lama heli karo waa dareemi kartaa xaaladda adag marka duqeymuhu wali way sii soconayaan Bahrain sidoo kale way beegsanaysaa ciidamada dalkaasi ilaalada kacaanka dalka Iiraanna waa markaasi weerar xoogan ay ku qaadayaan sidaad arkaysaan daawadayaal oo shaashadaba saaran sawirkan telefishinka Al Jazeera uu soo dhigay laakiin laga xiganayo wakaalada wararka ama warbaahinta weyn ee Wall Street Journal waxay leeyihiin mas'uuliyiinta Mareykanka ayaan ka xiganay kuwa kamid ah Mareykanka hadda inuu dib uga fakarayo dib u eegis ku sameynayaba joogitaankiisa dalka Kuwait istaraatiijiyadda guud ee dowladda Iran waxaad moodaa inay hadda hirgashay oo ah in ay toos u beegsato saldhigyada waaweyn gaar ahaan saldhigyada khaliijka si loogu qasbo ciidamada Mareykanka halkaas inay ka baxaan kadibna la isugu geeyo Israa'iil una fududaato beegsigeeda markaas intii 10 meel ay duqeyn lahayd hal meel iyadoo inay markaasi duqeyso marka joogitaankoodu waxaad moodaa qasaaro ballaaran inuu gaaray oo waana arin markaasi haddii uu dhaboobo oo waliba ciidamadaasi laga saaro waxaan ognahay diyaarado badan oo yaalay saldhigyo kamid ah kuwa khaliijka in lala cararay isla markaana la geeyay
Israel iyo garoonka Ben Gurion waana sababtii markaasi dagaaladii ugu dambeeyay la sheegay Israel inaysan ugu fakarin sababtoo si ba'an bay u weeraraysaa khasaaro badan baana markaa ka gaari kara shalay baa ugu dambeysay Iiraaniyiintu xitaa waxay sheegeen diyaarado dagaal oo nooca F-35 iyo kuwo kale oo casri ah oo F-15 F-16 drones kala duwan iyo waliba ciidamada qaybaha la geeyo inay beegsanayaan waxyaabaha kale ee cajiibkana waxaa ka mid ah in meel kasta oo marka haddii meel laga qaado oo hangare kale la geeyo ama marka meelo kale la geeyo oo saldhigyo ka mid ah dalkaasi Kuwait ama Bahrain waxaad arkaysaa durbadiiba inay ka warhelayaan isla markaana meesha cusub ee la geeyey iyagu ay beegsanayaan haddii aan u gudubno xaaladda dalka Ciraaq iyo Sacuudiga saad la socotay xiisad ayaa ka dhex taagneyd Zara iyo inta badan markaas saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran Somali Coverage TV dalka Ciraaq waxaa si toos ah isaguna uga jawaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Ali Zaidi xaalad adag ayuu ku jiray Ali Zaidi waxaa jiray waqtiyadii ugu dambeeyay isfaham dhex maray isaga iyo Mareykanka waana marka mid la doonayay markaasi in Mareykanka iyo Ciraaq la isku soo dhaweeyo isla markaana la iska hor keeno Iran iyo waliba Ciraaq marka waxaa jiray waqtiyadii ugu dambeeyay in la sheegay maleeshiyaad ka tirsan kuwa taageera Iran inay beegsadeen qaybo ka mid ah dalka Sacuudiga gaar ahaan qaybaha shidaalka Ciraaq waxa markaasi jawaabteedu ay noqotay Sacuudiga inta baaritaanku uu socdayba in Sacuudiga diyaarado uu soo qaatay isaga iyo Mareykanka isla markaana toos ay u duqeeyeen goobaha ay lahaayeen xashdu shacbiga amaba kooxaha hubaysan ee aan markaasi dawladda si toos ah dawladdu way ku beereen xogolaha wasiirada bay ku jiraan xitaa laakiin marka la eego asalkoodu ciidamada kamaysan imaanin waa maleeshiyaad la aasaasay oo qabaa'ilka iyo waliba nin kastoo qori qaadi kara ha qaado lagu keenay kadib markii kooxaha argagixisada ee Daacish iyo kuwa kale la midka ay ku faafeen qaybo badan oo dalka Ciraaq ay qabsadeen oo fatwo wadaadada diiniga iyagu ay soo saareen kadib ayaa lagu aasaasay marka dawladda Ciraaq iyo waliba iyagu way hanjabeen waxaana ay tilmaameen 40 cisho ee xuska ka socda magaalooyinka barakeysan ee dalka Ciraaq inay sugayaan isla markaana jawaab culus ay ka bixin doonaan tiradii kaga dhimatay Sacuudiguna waa uu hanjabay laakiin waxaa jira dhinacyo hadda isku dayaya in xiisadooda la dejiyo waxa ugu sii darsoomay madaxweynaha dalka Mareykanka xubin ka mid ah aqalka cad oo la xigtay oo ku waramay in xitaa ay ka warqabeen dawladda Mareykanka in Ali Zaidi uu isagu ka warqabay waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu markaa xog la siiyey in la beegsan doono goobaha markaasi kooxaha Ciraaq taageera ama xashdiga loo yaqaano ee kooxaha Shiicada ee hubaysan markaasi taasoo carada keentay markaasi inay sii korato waliba heer ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba la kansalay booqashadiisii jadwalka ku jirtay ee uu ku tegi lahaa dalka Saudi Arabia marka wali xiisadu way taagan tahay meelo badan oo kalena oo Yemen iyo isbahaysiga waa jiraan marka wahagaag waxaa jirta Cabdulqaadir dhinaca kaleeto in isbahaysi Saudi Arabia ay ka fakarayaan military oo la dhisayo kuwaas oo ay rabaan in badda cas ee amnigeeda gacanta ku soo celiyaan dhowr iyo 10 dal ayaa kamid ah dalalkaasi la tiriyay waxaa kamid ah Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turkiga, Egypt, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Soomaaliya iyo Djibouti waxaana laga reebay Imaaraadka Carabta iyo dabcan Cumaan marka maxay tahay sababta labadan wadan looga reebay dalalkan kaleetana uu Sacuudiga u soo dhaweysto u dhahay isbahaysigan military qayb ka noqdo waa mahadsantahay Zara isbahaysigan shalay ayaa lagu dhawaaqay dhowrka cisho la soo dhaafana daagadaashiisa warbaahinada ayaa si hoos u tabinayay 14 dawladood ayaa khamiistii sheegay inay markaasi aasaaseen isbahaysi lagu talagalay dhanka badda oo difaaca oo waliba hogaaminayo Saudi Arabia oo lagu beegsanayo Xuutiyiinta yani waxa lagu furayaa maribiyoodka Bab al-Mandab baaliri laakiin waxa muuqata in lagu beegsanayo Xuutiyiinta markaasi waxa ka qayb galay 43 dawladood oo wakiila kaga jooga dawladda Saudi Arabia oo ku jiro kuwa Yurub iyo kuwa kale asalkana waxa loo yeeray 51 dawladood laakiin aakhirkii 14 dawladood ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay iyagu diyaar u yihiin inay isbahaysigan la aasaasaan dabcan mid haddaan u kala qaadno dawlado waaweyn oo miisaan leh ayaa ku jira kuwa qaarkoodna sababo gaar ah loogu yeeray ayaa ku jira marka ayaa jirta marka
haddii aanu ka horeyno sacuudigu waa dalka isagoo xiisada qayb ka ah dagaalka kula jira xuutiyiinta dowladda qatar isbahaysigii hore bay markaasi ku jirtaa fariinta tooska ah ee dowladda qatar ay dirayso iyada iyo kuwait iyo baxrayn waxay tahay in siyaasadda boqortooyada sacuudi arabiya ay ku gowracan yihiin wax kastoo ka dhaca xiisada gobolka ee sacuudiga meeshuu aado ay aadayaan maanta haddii uu sacuudiga heshiis israa'iil la galo kuwait toos bay u raacaysaa baxrayn mar hore bay dabaalatayba marka laga hadlayo Pakistan sababtay ugu joogto Pakistan heshiis difaaceed ayaa kala dhaxeeya dowladda Saudi Arabia ciidamada aad u fara badan oo 30,000 ka badan ayaa markaasi la sheegaa inay joogaan dalka Sacuudiga gaar ahaan deegaanada xadka markaan eegno Turkiga waqtiyadii ugu dambeeyay isu soo dhawaansho ayaa jiray oo Turkiga iyo waliba Saudi Arabia u dhaxeeya Masarna waxaan ognahay dowlad aad ugu dhow Sacuudiga inay tahay markaasi Turkiga ma toos ayuu dagaalka qayb uga noqon doonaa ma cadda ilaa hadda sababtoo ah Turkiga lafsadiisu culays badan baa saaran oo xiisada waxaan ognahay in xiisad culayskeeda leh ka haysato dalka Suuriya haddii markaasi dhanka marinbiyoodka Bab al-Mandab ayaa uu tagaya oo markaasi saameyn uu ku yeelanaya la yiraahdo waxaan ognahay Soomaaliya dhankeeda inuu isagu ku sugan yahay Israa'iil sidee bay uga falcelin doontaa iyaduna waa culays kale oo miisaankiisa leh marka la eego Urdun wadal marka isaguna saaxiib la Sacuudiga Bangladesh Nigeria laakiin marka la eego wadamada Djibouti Soomaaliya iyo Suudaan iyo Masar ba ku dar qubaradu waxay tilmaamayaan sababta loogu yeeranayo waxay tahay in sharciyad laga helo maadaama hareeraha badda cas iyagu ay joogaan marka muhiimna ay u yihiin arinta ku saabsan in marinbiyoodka Bab al-Mandab maadaama iyagu ay aad ugu dhow yihiin inay noqdaan dalal qayb ka ah waliba xalaaleyn kara isbahaysi kasta oo si sharci ah markaasi la doonayo lagu ergeliyo su'aashaada anigu u soo socda isbahaysigan muhiimadiisu waxaad moodaa inaysan weli dalalka Yurub iyo Mareykanka ogolaansho rasmi ah siinin way ka fakarayaan baa la yiri dowladahaasi Talyaaniga baa loo bandhigay iyo dowlado kale oo culayskooda leh laakiin marka ay ku milmaan xuutiyiintu ma aha markaasi kooxo toos meel iyagu markaa jooga oo dhanka badda buuraha bay ku dhex jiraan waxaad arkaysaa in saldhigyo badda dhexdiisa u yaallaa inaysan jirin laakiin wadamadan marka ay ku milmaan colaadan ka hor kale sidee bay noqon doontaa xaaladda iyo wejiga kale lama garanayo dowladda imaaraadka carabta maxay uga mid noqon weyso waxaa tani ay muujinaysaa khilaafaadka u dhaxeeya Saudi Arabia iyo waliba imaaraadka oo waliba ay ku kala aragti duwan yihiin meelo badan oo ay ugu horeyso dalka Yemen imaaraadka wuxuu taageeraa kooxaha gooni-goosadka Idris Zubaydi isagoo madax ka yahay magaalada Cadan waxaa la socotaa inuu ciyaarayo marka siyaasad cadowgii marka cadowgiisu waa saaxiibkaaga marka la eego markaad fiirisid wariyaasha waaweyn ee taageera ama gooni-goosadka fikradaasi iibinaya inay dood ka qabin marka la eego weeraradii ugu dambeeyay la beegsanayay Sacuudiga oo ay taageerayaan xitaa xuutiyiinta markii hore dagaal ay kula jireen marka siyaasaddu aad bay isu bedbedelaysaa oo dhinacyadan khilaafaadkoodu uu soo muuqanaya shalay xitaa waxaa la arkay rag ku dhow dowladda imaaraadka oo si adag u aflagaadeynaya ama markaa beegsanaya kelmado aan markaas miisaan ama aan mudnayn marka la eego Sacuudiga Masar iyo dowlado kale marka khilaafaadkoodu ayaa ugu weyn ayaa la dhihi karaa isbahaysigan waa looga reebay runtii Djibouti iyo Soomaaliya iyo Suudaan sababtaas ayaa keenaysa in lagu daro xiisada bariga dhexe gaar ahaanna dhinaca badda cas saameynta ay leedahay iyo inta ay la eg tahay awgeed isbahaysi kaliya Sacuudiga uu ku dhawaaqay wax badan ma ka bedeli kartaa bay kula tahay Sacuudigu wuxuu ciyaarayaa laba arin oo ah Sacuudigu kow marka dhanka badda ah laga duqeeyo cirkana waa laga duqeynayaa waxaana hadda uu bilaabay inuu kiciyo qabaa'ilada iyo dadka Yemeniyiinta ee deegaanada hadda gacantooda aan ku jirin xuutiyiinta iyagu ay is abaabulaan hubkii aad u fara badnaa ayaa la diyaariyey oo aad u fara badan waxaa la diyaariyey gaadiid dagaal dhaqaale fara badan ayaa markaasi hadda lagu shubaya Yemen Sacuudigu waxa uu sidoo kale ka baxay eraboorradii uu ku sugnaa oo ciidamadiisu ay ku sugnaayeen xataa eraboorrada rayidka waxaa la sheegay in qaab military loo adeegsan doono waxaasoo dhanba waxay markaasi noqonayaan waxyaabo ugu gol xaaraya dagaal cirka badda
iyo weliba dhulka oo la rabo Yemen qaybta xuutiyiinta ay haystaan in lagu beegsado dagaalkan wuxuu xadidi doonaa xuutigu ma ku jabi doonaa mise waayo gulufka colaadeed ee Sacuudiga hadda uu soo karkarinayo waa mid aad iyo aad u xooggan laakiin waxaa hadlay goor dhaweyd Cabdilmalik Al-Xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda xuutiyiintu waxa uu sheegay si kasta iyagu ay weerarka ay u soo qaadaan inay iyagu beegsan doonaan Sacuudiga in markaasi digniin toos u dirayo markaas Sacuudiga iyo waliba Yemeniyiintu inaysan markaa xukuumadda cadan fadhida wax badan ama qaybo kamid ah markaa deegaanada koonfurta inaysan wax badan iyagu dambi ku lahayn marka la arrintan Sacuudigana gadaal uu ka karinayo ay beegsan doonaan gudaha Sacuudiga jawaab culusna ay ka bixin doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado waxa xusid mudan haddii ay ku darsado saacadihii ugu dambeeyay waxa soo baxay xuutiyiintu inay gaareen heer hubkoodu ay samaystaan oo gudaha Yemen ay ku samaystaan gaar ahaan Sanca waxa sidoo kale la tilmaamayaa xuutiyiintu in ay dhaawac weyn u geysan karaan marka la eego dhaqaalaha caalamka iyagoo jari kara internetka iyo waliba keebalada hoos mara gaar ahaan wadamada khaliijkan aad u saameyn doona badda hoostooda marka sidoo kale 40,000 ilaa iyo 10,000 tiro u dhaxaysa ayaa la sheegay in ay markaasi haystaan drones iyo hub aad u fara badan runtii ma sahlana waan arki doonaa laakiin waa tahay daawadayaal intiina haatan ugu soo biirtay wali waxaad nagala socotaan Somali Coverage TV waxaana ka hadlaynaa xiisada bariga dhexe oo dhowr waji leh isla markaasina siyaabo kala gedisan ay uga dhacayaan gobolka intiisa badan xasarado dagaal iyo xiisado kala duwanba waa tahay Cabdulqaadir waxaa jirta adigoo mahadsan in uu hadlay masuul sare oo ka tirsan dalkaasi Ciraaq isla markaasina uu jawaab ay ka bixisay dawladda Ciraaq taasi oo sheegashada Trump ay ahayd in weeraradii lagu qaaday dalkaasi Ciraaq ay qayb ka ahayd dawladda Mareykanka isla markaasina Sacuudi Arabiya ay soo qaaday maxay yihiin waxyaabaha uu ka hadlay masuulkaas Zara haddii aan soo koobo qaybtaasi Ciraaq marka la eego hadaan ka hadlayay ayaan ku daray laakiin si faahfaahsan haddii aan uga hadlo afyeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda ama afyeenka xukuumadda dalkaas Ciraaq xukuumadda hogaamiye Cali Zubaydi ayaa beeniyay in Cali Zubaydi uu la ogaa ama wasaaraha dalkaas uu la ogaa Trump booqashadii uu ku tagay dalka Mareykanka oo loo sii sheegay in la beegsanayo kooxaha ay taageerto Iran isla markaana waxaad ogtahay Trump inuusan waxba qarin in markaasi isagu waxaad ku heshiisaan hadda cawada aad ku wada hadashaan qays haddii berri aan meel saarna haddii aad ku wada hadashaa caawa habeen dambe uu leeyahay aniga Zaaro sidaas baan marka ku wada hadalay marka nin sahlan ma aha marka waxaa la aaminsan yahayba inay xogtan jiri karto sababtoo ah ninkan isagu waa nin u janjeera Mareykanka markii horena uu ku yimid cadaadiska dalka Ciraaq waxay ku jirtaa marxalad aad u khatar badan sababtoo ah Ciraaq Iran kama maaranto arrin isku xiraya ayaana jira dowladda Sacuudiga iyo waliba dowladaha khaliijka waqtiyadii ugu dambeeyay waxay ciyaarayeen doorashooyinka inay soo saaraan dad ay iyagu taageeraan ama dad siyaasadoodu aad iyo aad markaasi u taageera waxaa ka mid ah wadaadka waxay ku guuleysteen inay bedelaan fikirka wadaadka hubaysan ee Muqtada as-Sadr laakiin keligii waxba kama bedeli karo sababtoo ah Iran waxay saraakiil iyo ciidanba u soo dirtay waqtigii dagaalada ay ka jireen 2014kii ee hogaamiyaashii Daesh ay ka qudbeynayeen magaalooyinkii Mosul iyo kuwa kale ee la midka ah markii inta gabdhaha Ciraaq iyo Zaydiyintii iyo waliba inta la soo wato la gowracayay markaas suuqada lagu iibinay kooxihii argagixisada ay ku fideen meelo badan oo ka mid ah dalkaas marka waxay ku guuleysteen Iiraaniyiintu inay kasbadaan dadkaasi marka halkan waxay ku asaaseen kooxo fara badan waxay asaaseen isbaahisiyo xooggan oo gudaha dalkaasi oo dawladda ka tirsan iyo kuwa aan dawladda ahaynba marka way adag tahay waqti xaadirkan in la kala jaro marka xaalad adag bay ku jiraan Ciraaq inay qaraxdo oo markaasi meel walba ay fowdo wada noqoto ama in sideedii ay ahaato arrintu xiisadda la qaboojiyo waa tahay Cabdulqaadir sida sawirkanba aad arkaysid Gaza meelaha ugu daran ee dagaalka Israa'iil ay ku hayso uu saameynta xooggan ku reebay ayay ka mid tahay laba cisho ka hor sidaad arkaysid qaraxaasi xooggan waxaa Israa'iil ay la beegsatay masaajid ku yaala gudaha Gaza ayadoo arrintaasi ay jirto ayaa haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanka guddigii uu u saaray xiisadda
gaza israa'iil iyo xamaas dhexdooda ah haatan ay ogolaatay xamaas in hubka dhigis lagu sameeyo heshiiskaasi ay qayb ka noqdaan halka israa'iilna ay diidan tahay arrintaasi isla markaasina la doonayo in xasaradii gobolkaasi dhinaca falastiiniyiinta xal loogu helo sidee bay ku ogolaadeen xamaas in hubka dhigis lagu sameeyo ayadoo dhinaca kaleetana la leeyahay israa'iil wayba diidan tahayba in heshiiska ay qayb ka noqoto ah in looga saaro ayagana gaza hubka dhigista xamaas beddelkeeda waa mahadsan tahay zara sidaad la socotay waqtiyadii ugu dambeeyey gudaha gaza waxaa ka jiray xaalad adag marka la eego gaza iyo falastiiniyiinta xamaas ha noqdeen iyo kooxaha kale hubaysan uma furna ilaa iyo markaasi inay isdhiibaan sababtoo ah waxay tahay gudaha gaza culays fara badan baa haysta dadkii waxaa la isugu keenay juqraafi aad u yar marka inta badan israa'iil ayaa la wareegtay 70% baa laga hadlayaa bal ka waran 2 milyan oo 300 iyo dhowr kilomitir oo markaa isku weerar deganaa marka 70% laga qabsado 2 milyan inta la isugu geeyo waad ogtahay culays uu saaran yahay godoomin ay ku jiraan oo dhankaasi masar ay xuduudoodii ka xiran tahay cid u soo gurmanaysa aysan jirin 3 sano iyagu ay dagaalamayeen marka la eego waxaa jira xitaa cadaadis xoogan oo dalalkii dhaqaale ahaan siin jiray iyagu ay cadaadinayaan sida marka la tilmaamayo waxaa leeyahay dowladaha qatar oo kale oo markii hore taageeri jirtay waqti xaadirkan waxaa u imaanaysa hanjabaad xoogan oo ogtahay in israa'iil ay toos u duqeysay sanadkii hore oo la duqeeyey magaalada caasimadda markii la beegsanayay hogaamiyaal ka tirsan kooxda gaar ahaan khaliil alxaya oo lagu dilay marka qoyskiisa xubno ka mid ah marka xaaladda adag ee hadda ka jirta jiidda gaza ayaa ku riixday baa leeyahay iyo cadaadis ay la kulmeen kooxaha waqti xaadirkan kooxda marka xamaas ay hadda hogaaminaysa maxaa lagu heshiiyey qodobo muhiima ayaa ku jira laakiin heshiiskan wuxuu u noqonayaa heshiiskii inta uu talaabiib tago trump markii uu isagu saxiixi jiray kadibna maxaabiista lagu sii daayey sidoo kale heshiiska lagu saxiixay magaalada sharm el-sheikh ee dalkaasi masar madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa marka waxa uu isagu sheegay in heshiis taariikhi uu isagu yahay mid hubka dhigisa macnaha heshiiska taariikhiga waxa uu u yahay israel ee uma aha markaasi xamaas sababtoo ah hubka waa laga dhigayaa iyagu markaasi iyo dhammaan kooxaha kale hubaysan ee jiidda gaza markaas trump waxa uu sheegay in heshiiskan lagu fulin doono marxalado si taxadar leh loo qorsheeyey ciidamo amni oo xasiloon oo markaa boolis cusub oo falastiiniyiina gaza loo samayn doono trump waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada israa'iil iyaguna ka bixi doonaan gaza marka la dhammaystiro hubka dhigista halkan waxaad moodaa inay tahay qodob miinaysan waxaad garan kartaa wuxuu leeyahay marka heshiiska la dhammaystiro ama habka hubka dhigista iyaguna waxay leeyihiin hogaamiyaal ka tirsan oo la hadlay warbaahinta inay diyaar u yihiin inay heshiiska qaataan laakiin kow israa'iil ay ka baxdo markaas waa laba qodob isdiidan oo aan sahlayn qodobka sideedaad oo kale waxa uu dhigayaa in heshiiska in ururinta hubka iyo keydintooda hubka culus oo hubka marka culus ay ka bilaaban doonto kadib marka la dhammaystiro heshiiska ka haray marka brotokolkii sharm el-sheikh waxaa la diyaarin doonaa jadwal fulineed oo 14 maalmood gudahooda waxaana suurtagala muddadaasi in la kordhiyo haddii guddi caalamiya oo go'aan oo xaqiijinaya marka go'aankan sidoo kale habka fulinta waxaa la xiriirinaya baa layidhi israa'iil inay ka baxdo gaza si tartiiba marka si tartiiba iyo hubka dhigista waxaa horumaraysa hubka dhigista qoladana waxaad moodaa culays ballaaran inuu saaran yahay marka qatar intee la-eg bay leedahay marka in hubka dhigista ay hormarto ayadoo kasoo bixista xamaas israa'iil dhulka falastiiniyiinta aysan hirgelin kooxdan gebi ahaanba way burburi doontaa oo markaasi kooxintaas sana soo jirtay oo marka la eego go'doomin ku jirta xaalad adag oo marka ay sahalnayn wadamadii carabta intooda badan go'doon kaga jirta argagixisa u diiwaan gashan markaad aragtid marka waad dareemi kartaa wadamo qaar baa yiri macnaha marka la eego oo maraykanka ku raacay oo fikirka aqoon muslimiinka iyagu ka soo horjeeda sida masar inkastoo cilaaqad ay la leedahay haddana waxaan ognahay masar in waqti ay isku xumaadeen marka dowladda Sisi ay timid waxaan ognahay Sacuudiga inay markaasi waqti ka mid ah waqtiyada argagixisa ay ka ahaayeen hogaamiyaashoodii lagu xirxiray marka
culayska haysta ayaa sababaya waqti xaadirkan in wax walba ay tanaasulaan iyo weliba cadaadiska saaran oo dowladaha carabeed ay ku cadaadinayaan waayo meeshii ay kaga gaba lahaayeen oo dabool ay kaga heli lahaayeen ayaad moodaa in ay kaga imaanayaan dulduleel iyo weliba marka culays aad baad u mahadsantahay cabdulqaadir waqtigaaga adigaa mudan saar madaxa warweyn TV cabdulqaadir qayska ayuu kaasi ahaa oo igu waramayay xiisada bariga dhexe ee dhan walbaba waqtigan u muuqata in ay ka ololeyso daawadayaal tabintan intaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa naga xusuusina la socda barnaamijyadeena kala gedisan ee qaybaheena online-ka ka baxaya si aad ula socotaan gaar ahaana youtube-yada Somali Coverage TV iyo warweyn TV halkaasi oo wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo dunidaba aad ka heleysaan haddii Allah awoodda la ogolaado inta ka horeysa nabadgelyo